madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa si wada jir ah ula kulmay mas'uuliyiin ka kala socotay qaramada midoobay iyo midowga Afrika oo ay kala hogaaminayeen Jean Mero Guerno iyo sidoo kale Rantana Lamara oo loo xilsaaray ka shaqeynta arrimaha dhaqaale u raadinta howlgalka amisom ee Soomaaliya. Mas'uuliyiintan ka socotay qaramada midoobay iyo midowga Afrika ayaa ugu mahad celiyay madaxweyne Farmaajo dadaalada dib u heshiisiinta uu dalka ka wado iyaga oo soo dhaweeyay tallaabadii uu u qaaday xalinta khilaafka baarlamaanka Soomaaliya waxa ayna muujiyeen sida beesha caalamka ay uga go'an tahay garab istaagga Soomaaliya. kulanka oo goobjoog ka ahaayeen danjirayaasha gaarka ah ee qaramada midoobay iyo midowga Afrika Michael Keating iyo Francesco Madero ayuu madaxweyne Farmaajo waxa uu kaga hadlay ahmiyadda dhismaha ciidanka uu leeyahay dawladda uu hogaamiyo oo uu sheegay madaxweynuhu inuu gacanta ku hayo dib u habeynta ciidamada qalabka sida oo uu xusay madaxweyne Farmaajo inuu ku rajo weyn yahay inay ku filnaan doonaan amniga dalka. madaxweyne Farmaajo ayaa ka codsaday in habka dhaqaale u raadinta ciidanka amisom ay wada jirka ugu shaqeeyaan midowga Afrika iyo qaramada midoobay in lagu daro si la mid ah in ay ciidamada Soomaaliya loogu heli lahaa dhaqaale u suuragelinaya in ay ku filnaadaan mas'uuliyadda amniga dalkooda. kulanka oo sidoo kale looga hadlay arrimaha dib u heshiisiinta tayeenta ciidanka iyo la dagaalanka argagixisada ayaa madaxweyne Farmaajo waxa uu ka hadlay qorshaha ay dawladda Soomaaliya ku aadan la dagaalanka argagixisada iyada oo markasta laga fikirayo yareynta khatarta soo gaari karta dadka rayidka ah. kulanka madaxweynaha Soomaaliya iyo mas'uuliyiinta ka kala socotay qaramada midoobay iyo midowga Afrika ayaa ku soo aadaya iyadoo madaxweyne Farmaajo uu horaantii bishii hore uu dagay wasaaradda gaashaandhigga si uu waqti badan u geliyo dib u dhiska ciidanka xoogga dalka taas oo muujinaysa ka go'naanshaha dawladda Soomaaliya ee dib u dhiska ciidamadeeda. Bil Amir Maxamed SBS TV xafiiska magaalada Muqdishow.